Mareykanka ayaa sheegay in uu boqol ka tirsan ciidamada taabacsan dawladda Suuriya uu ku dilay bariga waddankaasi taasi oo argudasho u ahayd wax lagu tilmaamay daandaansiga ka dhanka ah mucaaradka uu Mareykanku taageero. Suuriya oo ka carootay weerarka waxay ku tilmaantay xadgudub kale oo lagu taageerayo argagixisada. koonfurta fogna duqayn ay fuliyeen diyaaradaha dawladda oo lagu qaaday bariga Quuta waxaa la sheegay in lagu dilay 25 qof. maxkamadda caalamiga ee dambiyada ayaa xaqiijisay in ay baarayso dambiye la sheegay in la galay xilligii ay dawladda Philippines dagaalka daroogada ay waday. madaxweyne Duterte ayaa lagu eedeeyay inuu amray dhimashada kumanaan qof oo looga shakiyay afayeenkiisa sawaa uu beeniyay wararkaasi. jarmalkana xisbiga hogaamiye Angela Merkel ayaa ogolaaday in dawlad isbahaysi ah uu la samaysto xisbiga midigta dhexe ee Social Democrats. go'aanka ayaa si dhan loo wada gaaray oo guddiga fulinta ee xisbiga midowga bulshada ee masiixiga ah ay qaateen, laakiin qaar ka mid ah xisbigeeda ayaa ku eedeeyay Ms. Merkel in wax badan ay siisay xisbigaasi. daraasad cusub ayaa muujinaysa in maadada laga helo nooc ka mid ah khudaarta iyo qaybo kale oo cuntada ah ay markaasi door muhiima ku leeyihiin faafitaanka cudurka kansarka. saynis yahano ayaa ogaaday in kansarka naasaha uu si degdeg ah u faafo marka la isticmaalo geedkan. tani waxa ay micnaheedu tahay in haddii wax laga bedelo cuntada qofka bukaanka ah ay kordhinayso fursadiisa inuu badbaado.